wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo habeenkii xalay ahaa magaalada Qaahira kula kulmay ardayda iyo jaaliyadda Somaliland ee dalkan Masar ayaa ka warbixiyay ujeedada safarkooda iyagoo sheegay inay halkan u yimaadeen martiqaad rasmi ah oo ay ka heleen dawladda dalkani kulan isugu jiray soo dhaweyn iyo kala warqaadasho oo ay wasiiradani la yeesheen ardayda iyo jaaliyadda Somaliland ee magaalada Qaahira ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadal soo dhaweyn ah ka jeediyay gudoomiyaha ururka ardayda Somaliland ee dalka Masar Jaamac Cali Ducaale waxaan leeyahay waqtigan ballaaran iyo wasiiradana qaaliga ee waqtigoodiina horay caawa waxaan leeyahay ku soo dhawaada Masar gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa in badan waa idin sugaynay waana magaranaysaa idin booliyoonay soo dhawaada oo ku soo dhawaada ardaydiina iyo dadka reer Somaliland ee iyaguna halkan jooga oo in badan idin sugayay garyaqaan Cabdilaahi Nuur Xasan oo loo yaqaan Cabdilaahi Daabshiil oo kamid ah aqoon-yahanada reer Somaliland ee dalka Masar ayaa isna halkaasi ka hadlay waxa uu yiri inta haddaan ka baxo waxaan malaynayaa waxa fadhiya hortiina waxa weeyaan arday aqoon-yahan ah oo waxa weeyaan dalkoodii wuxuu soo baranaya kana mid ah muwaadiniinta aad madaxda u tihiin waa madaxdii mustaqbalka hadda idinku maanta tihiin madaxda maanta iyaguna waa madaxda mustaqbalka waa kuwa aad u gogol xaadisaan marka caqligooda iyo maskaxdooduna waxa ay mar walba ku xidhan tahay dalkoodii si dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba ay wax ugu qaban lahaayeen marka mar hadday caynkaa tahay madashu waxa weeyaan madal aqoon-yahan iyo madaxi ay isugu yimaadeen aqoon-yahankuna waa ka tilmaama madaxduna waxay ku shaqeeyaan talada aqoon-yahanka dalka aan labadaa ku dhisnayni waa ujumaan wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo kulankan lagu soo dhaweynayay ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda dalku ku sugan yahay wadanku halku marayo waa ka warhaysaan wadanku waa nabadgeliyo aad iyo aad buu fiican yahay waqtigan abaarihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka jabiyay colaadii xilligii hore taagnayd ama xilliga qaarkood bilaabantay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka kaxeeyay walow ay iska jiraan dareemo iyo iska jiraan meelo yani warwar laga qabo oo de Soomaaliya oo dhigteedii wadata inuu xigto haddana waqtigan xaadirka ah waa nabadgeliyo wax weyn oo caawa taagan oo lafjabo aan idin sheego aan kaga nimo xagga nabadgelyada ay ma jirin dawladii Somaliland shacabku doortay aanu ka mid ka ahayn way shaqeynaysay si waxan baan u shaqeynaysay waxa runtii waqtigan jira xisbiyada sida maqasheen ururo la furay iyo in xisbiyada hore tartamaan oo siyaasadda la balaariyo loona ogolaado in platformka tartanka ay yani ka qayb galaan cidii dareemisay maxay tahay la caburiyay ama aan ka qayb qaadan xilliyadii hore inay ka qayb qaataan si aanay u dhicin waxyaalaha wadamada carbeed ka dhacaya oo ah inay dadku waayaan jaaniska siyaasadda ka qayb gali lahaayeen sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland oo isaguna mikrofoonka lagu soo dhaweeyay ayaa mahad celin kadib waxa uu ka hadlay ujeedada safarkooda uu ku joogan magaalada Qaahira ee xarunta dalkani Masar marka ugu horeysa safarkan sidii la idin sheegayba wuxuu ka dambeeyay martiqaad rasmi ah oo xukuumadan cusub ee dalka Masar imika ka jirta ay u soo gudbisay dawladda Somaliland annaguna sidaan ku nimid waxa weey annagoo wakiilka Somaliland ayaa halkan u nimid waxaan bartoonahay dawladda dalka Masar si aad iyo aad wanaagsan noo soo dhaweysay ilaa imikana wada hadaladii iyo hawlii halkan u nimid ay si aad u fiican u socdaan ujeedada ugu weyn ee safarku waxa ay kow in aanu xiriir dhinacyo badan leh oo cusub aanu la yeelano haddaan nahay mas'uuliyiinta dawladda Somaliland inaanu la yeelano dalkan Masar xukuumadan cusub ee maanta ka bilaabatay sida ka warqabtaan siyaasadda Masar imika waxay gashay nidaam cusub oo ka duwan taariikh ka duwan sidii ahaan jirtay waxaa la filayaa in xukuumadan cusub iyo doorashooyinkan socda iyo isbedeladan socda inay keenayaan in dawladda Masar ay dib u eegto
مواقفتي أي كقاعدين جرتي أريمة بدن وعالمك هوري الله دايتها قارة أفريقيا دايتها عربتها يا دايتها المشكلة ده هي حيصلها كل الدنيا كتاجرين طبعا وقد يد الصومال لأن كم تاعي أريمها يدبوا إيجي سدود مصر marka waxaan anagu istusnay oo aan aragnay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliland ay la timaado fikrado siyaasadeed iyo hindisiyaal cusub oo lagu cusboonaysiinayo xiriir dhexmara dawladda Masar iyo dawladda Soomaaliland oo aan ku baadi goobayna inuu manfacaad iyo waxtarba u yeesho shacabka Soomaaliland. ugu dambeyntii waxaa halkaasi tixgabayo soo dhaweyn ah ka tiriyay Abwaan Siciid Cabdi Xirsi oo kamid ah ardayda reer Soomaaliland ee halkan wax ka barta iyadoo sidoo kalena ay ardayda reer Soomaaliland ee dalkan Masar su'aalo weydiiyeen wasiirada waftigan ka kooban labada wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wasiirka madaxtooyada ayaa noqonaya waftigii ugu horeeyay wasiirada ee martiqaad rasmi ah ka hela dawladda dalkan Masar. Khadar Shaani, Home Cable TV, Qaahira.